ay sirta shan qodob oo dadka ku guuleystay e-commerce ay sameeyeen oo aysan cidna ku sheegin. Assalaamu calaykum dhammaan ku soo dhawaada channel-kan. Maanta waxaanu ka hadli doonaa sirta dhabta ah ee dadka ku guuleystay e-commerce siro inta badan aan lagu sheegin YouTube ama koorsooyin. Haddii aad rabto inaad e-commerce aad ku guuleysato ama guul fiican inaad ka gaarto runtii muuqaalkan ha dhaafin, waa muuqaal runtii wax badan kaa saacidi doona. ugu horreyn walaal YouTube waxaan kaga hadalnaa e-commerce-ga iyo self development-ga. haddii aad mawduucyada jeceshahay ugu horreyn YouTube ku soo biir, subscribe noo saar oo like saar si aad u hesho mawduucyo badan oo ku saabsan sida aad ganacsi u bilaabi lahayd iyo waxyaabaha ku saabsan marka horumarinta shakhsiyadda. waxaa jira marka waxaan soo qaadanaynaa 5 qodob oo dadka ku guuleystay inay bilaabaan ganacsi online runtii ay sameeyaan, adiguna aad sameyn karto oo ganacsi e-commerce ah ama ganacsi online runtii 2026 aad bilaabi karto guul fiican aad ka gaari karto. 5 qodob. qodobka koowaad waxa weeye sirta koowaad ee dadkaasi ay sameeyaan waxa weeye dadka guuleystay ma iibiyaan alaab ee waxay iibiyaan xal. inta badan dadka guuleystay waxay xoog saaraan in ma iibiyaan alaab ee waxay iibiyaan dadka inay ka iibiyaan alaab markaa xalinaysa dhib jirta xalinaysa. waxay marka hore fahmaan dhibaatada macaamilka. horta dadkan maxay rabaan inay iibsadaan, maxay jecel yihiin inay iibsadaan. waxay marka hore fahmaan dhibaatada macaamilka, kadibna waxa ay tusaan sida alaabta ay hayaan u xalinaysa dhibaatadaas. marka that's why mar walba oo alaabta aad hayso ay dhib ka jawaabayso ama dadku baahi dadku ay qabaan ay xalinayso, waa markastoo dadku wixii ay ka iibsadaan ganacsigaaga inuu guul gaaro. marka dadka guuleystaa ma iibiyaan alaab ee waxay iibiyaan xal, alaab xalinaysa dhibaato xalinaysa. waxay marka hore fahmaan dhibaatada macaamilka, kadibna waxay tusaan sida alaabtu u xalinayso dhibtaas. qodobka labaad ee dadka guuleystay ay sameeyaan waxa weeye waxay diiradda saaraan hal alaab oo sax ah. had iyo goor waxay diiradda saaraan hal alaab oo sax ah in ay iibiyaan, kuma mashquulaan alaab badan bilowga. hal alaab ayay ku dhisaan xayeysiin, kalsooni iyo sumcad. inta badan dadka guuleysta waxay xoogga saaraan niche, alaab gooniya ayay iibiyaan si alaabtaas loogu barto dadkuna ay uga iibsadaan. hadhow marka la alaabta yar hayana iyaga farta lagu soo fiiqo, meesha ay ku mashquuli lahaayeen in alaab badan iyo alaab tiro badan ay iibiyaan. halkaasoo ay keenayso marka in alaabtii ay garan waayeen tee soconaysa tee baan soconayn, tee suuq qiimo kula tee baan qiimo lahayn, tee faa'iido samayn tee baan faa'iido samaynayn. marka had iyo goor waxay xoogga saaraan marka ay bilowga yihiin in ay hal ganacsi ama hal shay ama hal product in lagu barto. meesha alaabo kala duwan waxa arkaysaa qof wuxuu bilaabay ganacsi ama bakhaar buu sameeyay, shidaalkii buu iibinaya, alaab kale uu iibinaya, wax kale uu iibinaya, meel loogu hagaagado male. marka dadka guuleystay had iyo goor waa dadka saara niche ama hal alaab xoogga saara. qodobka saddexaad dadka guuleystay ay sameeyaan waxa weeye waxay aad u baaraan ama u bartaan suuqgeynta. aad waxay xoogga u saaraan suuqgeynta. xayeysiin fiican bay samaystaan, fariin sax ah ayay sameeyaan, content soo jiidasho ayay sameeyaan. waxay keenaan iib, ma aha website qurux badan oo kaliya. had iyo goor xoogga waxay saaraan sida ay marketing u sameyn lahaayeen, sida ay dad u soo jiidan lahaayeen, sida alaabta ay uga gadi lahaayeen dadka marka ay doonayaan inay ka iibsadaan. marka waxay sameeyaan xayeysiin fiican, fariin sax ah iyo content soo jiidasho leh. taasina waa ta keentay inay guuleystaan. waa qodobka saddexaad. qodobka afraad ay sameeyaan ama sirta afraad ay sameeyaan dadka e-commerce-ga ku guuleysta waxa weeye khasaaraha kuma mashquulaan ama khasaaraha kama quustaan. haddii khasaaraan ma quustaan, waa hore u sii socdaan. waxay u arkaan khasaaraha cashar, ma aha guuldarro. tijaabo kasta waxbay ka bartaan. marka haddii dadka e-commerce-ga ku guuleysta waa dadka marka ay khasaaraan aan markiiba ganacsiga ka cararin. qofka wuxuu rabaa inuu faa'iido ku jiro. haddii uu khasaaro soo gasho ganacsiga uu ka cararaya. kaasina marka waxa la yiraahdaa fulayo guul ku dhaweeyay. waxa laga yaabaa isagoo guuleysan lahaa in ganacsigu uu uga fashilmo. marka qodobkaasina waa waxyaabaha ay keenaan dadku guuleysta. had iyo goor ma aha dad khasaaraha ka quusta. qodobka shanaad ee dadka e-commerce ku guuleysta ay sameeyaan waxa weeye waxay dhisaan kalsoonida macaamilka. had iyo goor waxay xoogga saaraan in qofku wax ka iibsanayo kalsooni buuxa uu ku qabo alaabtooda iyo marka brandka ama sumadda ay iibinayaan. jawaab degdeg ah, daacadnimo iyo adeeg fiican, kuwaas ayaa ka dhiga macaamilku inuu mar kale soo laabto. had iyo goor xoogga waxay saaraan macaamilku marka uu la joogo kaliya inuu wax ka iibsanayo sida uu mar labaad u soo noqon lahaa, mar saddexaad u soo noqon lahaa ayay xoogga saaraan. taasina marka waa waxa weeye waa tan keentay guusha in uu guuleysto qofka e-commerce-giisa. marka 5 qodob baa keena in dadka e-commerce ay ku guuleystaan. 5 qodob maxaynu ku soo shidaan soo dulmarno. koow waxaynu niri dadka guuleystaa ma iibiyaan alaab ee waxay iibiyaan hal xalinaysa dhibaato dadka haysta. marka qodob kale waxa weeye waxay diiradda saaraan hal alaab oo kaliya oo sax ah ayay diiradda saaraan. qodobka saddexaad waxaynu niri waxay aad u bartaan suuqgeynta si alaabtooda dad badan ay u gaarto. qodobka afraad waxaan niri khasaaraha kama quustaan, oo haddii ay khasaaraan ma quustaan oo isma dhiibaan.
qodobka shanaad waxay dhisaan kalsoonida macaamiilka had iyo goor gunaanadka waxaan ku soo urureynaa marka haddii aad rabto guul e-commerce inaad gaarto diiradda saar xalinta dhibaato waxaad iibinaysaa inay dib xalinayaan baro sida marketing suuqgeynta loo sameeyo yeelo dulqaad hana quusan guushu ma timaado hal habeen balse waxay timaadaa ama u timaadaa qofka adkaysta sameeya haddii aad ka faa'iido muuqaalkan wuxuun aad ka faa'iiday fadlan like noo saar YouTube ka subscribe saaro oo comment nugula wadaag marka faalada iyo aragtida aad qabto muuqaalo kale oo ku saabsan online-ka ama business-ka sida e-commerce loo sameeyo iyo horumarinta shakhsiyadda ayaa runtii soo socda si aad adiguna uga mid noqoto dadka ku guuleysanaya in ay ganacsi online 2026 ay bilaabaan haddii aad doonayso koorso dhammaystiran oo lagu baranayo sida Alibaba iyo Shein looga soo adeegtana runtii koorsadaasna waa ku haynaa iyadoo qiimo jaban iyo dabcan sida suuqgeynta loo sameeyo marka haddii iyada doonayso inaad koorso iibsato aad barato marka ganacsi online isla maantaba aad dhisto iyadana wax nagala soo xiriiri kartaa linkiga WhatsApp-ka xagga hoose yaala aad ba mahadsantahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.